Koob kubadda cagta oo loo qabtay qaar ka mid ah iskuulada ku yaala deegaanka Gubta ayaa guudaan la soo gabagabeeyay iyadoo tartankan uu si xiiso leh kaga soconayo deegaanka Gubta. Ciyaartii finalka waxaa isugu yimid labadii iskuul ee kala Royal International iyo sidoo kale iskuulka Darul Nazaah iyadoo labada dhinac ciyaartooydoodu ay gudaha garoonka si aad ah ugu xifaaltameen. Muddadii uu socday tartankan waxaa xiiso gooni ah u sii yeelaya taageerayaal aad u fara badan kuwaasoo galab waliba soo xaadiraya garoonkan iyagoo u kala sacabtumayay iskuulada kala duwan ee ku xifaaltamaya gudaha garoonka. Ciyaartooyda labada kooxood oo dagaal adag uu ku dhex maray gudaha garoonka ayaa ugu dambeyn ciyaartoodu waxay noqotay in ciyaartooyda iskuulka Darul Nazaah ay ku guuleystaan koobkii kubadda cagta iskuulada deegaanka Gubta. Finalkii waxaa lagu casuumay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socotay deegaanka Gubta iyadoo goobta laga jeediyay khudbado kala duwan. Sidoo kalena waxaa lagu casuumay qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ka qaybgalaya tartanka iskuulada deegaanka Gubta. Koobka waxaan u qabanay 12 iskuul oo ku yaalan deegaanka Gubta. maanta waxaa finaalka dheelay labada iskuul Royal iyo iskuulka Darul Nazaah. ilaa mahadiis waxaa koobka meeshaas ku qaatay kaalintood ku galay ama guusha ku raacday Darul Nazaah oo ku badiyay hal iyo eber. muhiimadda koobkan u qabanay waxay tahay isdhexgalka deegaanka Gubta inaan muujino nabadda iyo arrimaha bulshada aad iyo aad u sareeyda ee ka jirta deegaanka inaan muujino ayaan u qabanay. intaan kuma eka doonto insha Allah taala kaba badan ayaa qaban doonaa ayaan u qaban doonaa iskuulada deegaanka. waxaan kaloo ka shaqeyn doonaa insha Allah taala horumarinta deegaanka insha Allah taala waana mahadsantiin. tartankan ujeedkiisu wuxuu ahaa isdhexgal bulsho wuxuu soo bilowday bishii Ramadaan labadeeda maanta ayuu soo afjarmaya intaasna qaybo kala duwan heerar kala duwan ayuu soo marayay. ujeedka loo qabanayo waxay ahayd in bulshada isdhexgalsho Gubta oo degmanimo loo diyaarinayo maalmaha soo socda tartamada isboorti gobolka Banaadir ka qayb galayso in laga soo saaro ciyaartooy aad u wanaagsan. labada iskuul oo finaalka imaaday Royal International iyo iskuulka Darul Nazaah waa u mahadcelinaa maamulkooda sida quruxda badan iyo qaayaha badan ee barnaamijka uga shaqeeyaan. iskuulka kaalinta koowaad galay ee Darul Nazaah oo koobka ay sanadkan qaaday aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka uu sameeyay iskuulka sidoo kale kaalinta labaad galay. waxaan sidoo kale barnaamijka ka marmeyn oo qayb weyn ka ah beerta dalxiiska ugu wanaagsan magaalada Muqdisho oo ah Muqdisho Tourism oo bal qaaday ardayda iskuulka kaalinta labaad galay inay sii doonto insha Allah dalxiis aad u wanaagsan beertana ilaa 15 qof oo kamid ah ay geey doonto dalxiiskaasi. sidoo kale maamulka deegaanka Gubta wuxuu bal qaadaya kulan qaas ah inuu qaban doono kulankaasi oo lagu bixin doono hadiyado shahaado sharafyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan sidoo kale gool dhaliyaha ugu wanaagsan qaybaha kala duwan asluub wanaaga sidoo kale waxay ku bixi doonaan hadiyado kale shahaado sharafyo abaalmarin kale funaanado iyo qaybo kala duwanba dhammaan maamulka dhalinyarada deegaanka Gubta iskuulada iyo dhamaantood waa u mahadcelinayaa hawsha ee soo qabtaan iyo shirkadii ka qayb qaatay. insha Allah waxaan rajeynayaa in xaflad qurux badan iyo dalxiis qurux badan aan sameey doono oo naga doono insha Allah. tartankani iskuulka Darul Nazaah kaalinta koowaad galay wuxuu la ciyaari doonaa finaalka tartanka kooxda soo baxdo tartanka waaxida deegaanka Gubta Boqolsoon iyo Barwaaqo kaalinta kooxda ku soo baxda ciyaarta saaxiibtinimo dhaxmari doonaan kadibna labadaas kooxood ayaa waxa laga xulin doonaa ciyaartooyda ugu wanaagsan gobolka Banaadir degmooyinka ka ciyaari doona deegaanka Gubta ciyaari doona aad baad u mahadsantihiin. finaalaha tartanka loo qabanayo iskuulaadka deegaanka Gubta tartanku waxa waa isdhexgal bulsho waxaan u mahadcelinayaa asxaabtii dhalinyaradii soo qaban qaabiyay tartankaas oo in muddo socday sidoo kale tana asigana waxa qalalaasa ama dhibaato ayna dhicinin ardaydu si wanaagsan u ciyaareen kuna soo dhamaaday tartanku ardaydu waxaan ku baraynay inay jirkooda inay ku jimicsadaan wuxuu ka kooban yahay laga ujeedo oo ahayna ardayga aqoontiisa iyo akhlaaqdiisa ama xirfadiisa ciyaareed inuu ku soo bandhigo waan u mahadcelinayaa ama waan u hambaleynayaa saaxiibkay ustaad عبد السمد iyo teamkiisa iskuulka Darul Nazaah. magacaygu waa Cabdi Samed Sheekh Muuse maamulaha dugsiga hoose dhexe sare Darul Nazaah maanta ay guuleystay. waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa guddigii soo abaabulay tartankan xiisaha badan. tartanka ujeedkiisu wuxuu ahaa isdhexgal bulsho oo mahadsantiin ayaan leeyahay ardayda iskuulkana hambaliyo ayaan leeyahay kaalinta koowaad ee ku guuleysateen. waxaa goobta laga bixiyay abaalmarino kala duwan ciyaartooyda kaalinta labaad galay ee iskuulka Royal International ayaa goobta lagu abaalmariyay si la mid ah ciyaartooyda iskuulka Darul Nazaah oo noqday championska koobka kubadda cagta iskuulada deegaanka Gubta ayaa goobta lagu gudoonsiiyay koobkii ay ku guuleysteen iyadoo ciyaartooyda iskuulkani si aad ah uga dabaaldegeen gudaha garoonka.